kusoo dhawaada dulqaad media daawadayaal iyo dhegaystayaal waa BBC oo idinkala hadlayso muujadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga heli kartaa magaalooyinka qaar internetka ciwaankeena waa bbcsomali.com. habeen wanaagsan ayaan hawada idinkalena waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caawiya caalamka. codka aad maqlaysaan waa wariyaha ugu da-da yar ee lagu magacaabo cabdiraxmaan buubaal axmed oo ku magac dheer catooshare. istiyaaba kusoo dhawaada barnaamijka waraysi aan la yeeli doono wariya daayar oo lagu magacaabo cabdiraxmaan buubaal maxamuud oo ku magac dheer catooshare. catooshare waxa ka mid yahay wariyaasha ka howlgala idaacadda radio Johor ee gobolka Shabeellaha Dhexe. catoosh kusoo dhawaada waraysiga. saaxiib awalan aad u mahadsan tahay waan kaga mahadcelinayaa adiga iyo dhammaanba asxaabtana naga dhagaysanaysa dulqaad way ay mahadsan yihiin magacayga sida toro u sheegto waa sidaas marka aad ayaad ugu mahadsan tahay waraysiga aad iga qaadaysid caawa. aad iyo aad ayaad mahadsan tahay waraysigiisi. catoosh waxaad iga warantaa maadaama aad tahay wiil dhalinyaro ah oo goorma ayaad bilowday saxaafadda? waxaan bilaabay 27 bishii December sanad 2017 markaas oo aan kasoo bilaabay warbaahinta Johor. xilligaas oo aan halkaas u joogay training markii dambana aan halkaas ku soo aanbaxay oo uu igu baxay magacaan catooshare. catooshare maxaa lagu bixi ma codkii catooshare ayaa leedahay mase naanays waalidka ay ku bixiyeen waa? magacaas waxaa ii bixisay asxaabta inta badan iga dhagaysanaysa warbaahinta oo inta badan waxaan aad u xifdiyey in aan keeno codkaasi ugu dambeyntiina aan ku guulaystay marka asxaabta ayaa ila jeclaatay inay ii bixiyaan magacaas catooshare. catooshare dadka ku dhagaysta ayaa ku yiri codkii catoosh oo ah wariye idaacadda BBC laanteeda af Soomaaliga ka tirsan wariyaasheeda codkaas ayaa leedahay ku yiraahdeen. safiican yaraantaadii ma jeclaan jirtay inaad noqoto wariye mase waqtigan xilligan dambe ayaad ku fikirtay inaad noqoto wariye yaa kugu dhiirigeliyay? aniga yaraanteeda aad ayaan u jeclahay inaan noqdo wariye oo inta badan waxaan dhageysay codka aadan sabriye iyo allah u naxariistay cooke. labadaas cod markay ugu adkaatay ayaan waxaan biloobay in aan dib u dhageysto wariye Rasaaq Xaaji Catoosh sanadii 2013 markaas oo asaga laftiisa xitaa uu warbixino ka geli jiray warbaahinta BBC-da. markaas kadib waxaa igu dhiirigeliyay tafatiraha radio Johor Bashiir Cabdi Daahir Caanaboore. sidoo kale waxaa igu soo dhabeeyay agaasimaha radio Johor Maxamed Abuukar Caseer iyo dhammaan shaqaalaha warbaahinta Johor. halkan ayaan ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan leh oo ay xilligaasi 2017 ay ii qaabileen in aan ka howlgalo warbaahinta. sidoo kale halkan waxaan ugu mahadcelinayaa wasiiradda dhalinyarada iyo sportska xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaanad Khadiij Maxamed Deeriye oo ah maamadeyda oo maamo agteeda qayl ku ah oo ah waan u mahadcelinayaa xukuumadda nabad iyo nolol waan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre asagana waan u mahadcelinayaa madaxweyne Farmaajo hambali ayaan leeyahay. aad ayaan ugu faraxsanahay in aan ku suganahay maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. sidoo kale wasaaradda waxaan ugu mahadcelinayaa soo dhaweynta ballaaraneed oo ay shalita ii sameysay waa ay ku mahadsan tahay. catoosh waxaan noo samaysaa hal report ama hal war oo adigoo war gudbinaya ama war jeedinaya ama xiriiriya ma noo samayn kartaa? saaxiib aad u mahadsan tahay. halkani waa BBC oo idinkala hadlayso muujadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga heli kartaa magaalooyinka qaar internetka ciwaankeena waa bbcsomali.com.
habeen wanaagsan ayaan hawada idinka lena waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caawiya caalamka qodobada aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo sheegay in uu sare usii kacayo xanuunka coronaviruska xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxay sheegtay in laga hortagayo xanuunkaasi sidoo kalena ay fureen xarumo lagu karantiilayo dadka uu waxyeeleynaya xanuunka coronaviruska wasiiradda dhalinyarada iyo isboortiska xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaanad khadiija maxamed gariye waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in laga hortago xanuunka coronaviruska sidoo kalena waxay sheegtay in gebi ahaanba la joojinayo kubadda cagta si ku meel gaar ah sidoo kaleeta qodobada waxaa qayb ka ah madaxweyne donald trump waxa uu sheegay in masiibada ugu weyn ee dunida galgalaysa ay tahay xanuunka coronaviruska aan la arkin xanuunkan lamid ah wasaaradda caafimaadka ee dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay samaynayso dhaqaale ay ku samata bixinaysa dadka ku waxyeeloowaya xanuunka coronaviruska waxaase uu kac laga dareemaya xanuunka coronaviruska iyadoo wadamo qaar la sheegaya in uu hoos u dhac uu ku iman sidoo kale wadamada qaaradda yurub ayaa waxaa laga dareemayaa in goobaha ganacsiga iyo caafimaadka dib loo furayo maadaama welisa ay xiran yihiin goobaha waxbarashada iyo sidoo kale goobaha lagu dalxiistaga magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa la sheegayaa in xilliga habeenkii ay bendow tahay iyadoo wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in ay sare u kacday tirada xanuunka coronaviruska dadka uu xanuunkaas waxyeeleeyay ayaa waxa ay gaarayaan 62 ruux 2 ruux ayaa ka bogsootay 2 kalena way u geeriyootay halka 58 ruuxna lala tacaalaya xaaladooda caafimaad ee yaala isbitaalka martini ee magaalada muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin hayaa aad iyo aad mahadsantahay wax xiriir ma la sameysay maadaama codkii catoosh ah keentay ma la xiriirtay weliga catoosh weriyaha BBC da raadiyaha idaacadda BBC da af Soomaaliga inta badan dad aad ii taageera ayaa barnaamijkayga u sheer gareeyay oo asagana waa uu ogyahay in aan ku sugnahay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya oo sidoo kale aan ku dhashtay gobolka shabeellaha dhexe ee jowhar laakiin weli ma aysan dhicin kulan ama xiriir aan toos u wada xiriirnay iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in asaga laftiisa la gaarsiiyo barnaamijkaas maadaama aad tahay wiil dhalinyaro waxbarashadaada ilaa heerkay gaarsiisan tahay waxbarashadeeda waa heerka 2 ee dugsiga 8aad maadaama hadda aan gali doono imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga 8aad oo ay qabanayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Goodax Bare mustaqbalka maxaa rajaynaysaa inaad ka gaartid dhanka saxaafadda aniga mustaqbalka waxaan rajaynayaa in aan noqdo wariye heer sare ah oo tayadiisa aad u sareyso oo ugu dambeyn isku bedela nin wasiir ah waxaan aad u xiiseynayaa in aan noqdo wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya aan bulshada Soomaaliyeed iyo saxaafadda iyo dalka iyo diinta iyo dadkayga aan wax sare aan u qabto ka waran xaaladda nabadgelyada iyo nolosha magaalada ka timid gobolka Jowhar gobolka Shabeellaha Dhexe marka laga hadlayo xaaladda nabadgelyada iyo amniga waa mid degan iyadoo mararka qaar ay dhaxaan waxyaabo aan la filanaynin waad ogtahay marka aad adiga tahay wariye soo baxaya waxaad la kulmaysaa dhacdooyin iyo dhibaatooyin aad u fara badan dad adiga mucaarad kugu ah dad taageeraya dad taleefanka kaasoo aflagaadeynayo dad taleefanka kugu dhiirigelinayo ayaad arkaysaa marka waxaa loo baahan yahay mar waliba in aad yeelato dulqaad iyo samir iyo dareen wanaagsan aad weyn wax TV ama hadda idaacad ayaa ka shaqeysa sida ay sheegtay weli ma gaarin amalaya dhanka TV-ga weli ma jirto TV aan isoo codsaday laakiin inta badan way isoo waceen oo aan kuma biirin weli waxaa rajaynaysaa in muqdisho aad ku noolaatid ama inaad gobolkaaga u laabatid
inaan ku noolaado waan jeclahay oo laakiin waxaana soo hay imtixaanka dugsiga dhexe oo ay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay qaadayso. imtixaankaas kadib ayaan doonayaa in aan dib ugu soo laabto magaala madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Okay, maadaama ay ku dhageysanayaan taageerayaal badan oo codkaaga aad u jecel, maxaa u jeedinaysaa fariina? taageerayaasheedu waxaan leeyahay sidaad hadda ii garab taagantihiin oo aad ii taageeraysaan waad ku mahadsantihiin. sidoo kale ciddii aniga i taageerto i jecel waxay soo booqan kartaa YouTube channelka ee wariye Catoosh Yare oo halkaas subscribe like share ay saari karaan, iyo sidoo kale YouTube channelka ee Iles Media asxaabta labadaas ay iga heli karaan. marka waxaan leeyahay sidaad ii garab taagantihiin aad ii taageertaan waa ku faraxsanahay. sidaas ii taageera oo ii garab taagnaada mar walba waxaan wax ku ay adinka waan idinku faanaa, aad ayaan idinku faraxsanaa. Okay, aad iyo aad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdiraxmaan Buubaal Maxamuud oo ku magac dheer Catoosh Yare oo leh wiil talent leh ama hal abuur leh oo wariye ka ah idaacadda Radio Jowhar. Catoosh aad iyo aad u mahadsan tahay wareysigaada qiimaha leh waqtiga aan siisay Dulqaad Media. aad u mahadsantahay. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wareysiga aan la yeelanay wariyaha ugu daadayeer Catoosh Yare waa anigoo ah wariye Cabdinaasir Qujufa. meesha aad ka daawanaysaan waa Dulqaad Media. intaan ku kulmi doona barnaamij lamid ah barnaamijkan oo kale sidaas iyo nabadgelyo.